shacabkii Muqdisho oo ku jahwareersan showiyada fanaaniinta labada dhinac ah ay ku kala dhagsadeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maxaad xog ah oo aad daawade kala socotaa xifaaltanka labada dhinac ah ee ka dhaxeeya fanaaniintan iyo showiyadan ee maalinta ciida ah ee soo socota ay ku wada dhagsadeen magaalada Muqdisho waxaan idin sheegaynaa anaga showiyada qaar looga wacay kuma jirno show aan ku jirno waa showga fanaaniinta Hargeysa Somaliland qaasatan kuwa ka socdo xifaaltanka labada dhinac waxaa ku lamaanan Sharma Boy iyo Dayaxdal Nuurshe haddaba halkee ayay bulshada aadi doontaa showgeeso u muuqda inuu noqon doono mid fashilan warbixinteenan ayaan ku faaqidi doonaa muuqaalka like saar oo la wadaag saaxiibadaada ku mahadsanid daawade aanu guda galno daawadayaal warbixinteenan oo aan kaga hadli doono xiisadda xifaaltanka ku salaysan misanaca kiran ee xagga fanka ee ka socota magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida daawadayaal aad la socotaanba waxaa xalay magaalada Muqdisho si toos ah uga soo ifbaxay showyada ay kala dhagsadeen fanaaniinta kala ah Ismaaciil Aarka Dayaxdal Nuurshe Shaadiye Sharaf Maxamed Kaadheeri iyo fanaaniin kale oo dhinac ah waxa iyana maalinta ciida uu show u dhagsan yahay iyana fanaaniinta kala ah Najma Nashaad Axmed Aarshe Sharma Boy iyo xaaskiisa Malyun Maanka Maxamed Tobanle iyo Khalid Kaamil haddaba daawadayaal xogaha fashilaada ah ee baraha bulshada lagu wareejinayo ee showyadan la xiriira intaan u guda galin ila daawo qaar ka mid ah labada dhinac ee fanaaniinta ah oo ka kala hadlaya showyada ay ku wada dhagsadeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya shacabka Muqdisho waa ay ku wareersan yihiin midkii ay aadi lahaayeen showyada ay ku kala jiraan Dayaxdal Nuurshe oo ahaa xidigii hore ee Muqdisho iyo Sharma Boy oo haatan ah xidiga haysta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya saadaalinta dadka qaar ee baraha bulshada isticmaalaya ayaana ah in fashil uu ku imaan doono showga uu ku jiro Dayaxdal Nuurshe walow labada dhinac ee showyada ay kala dhagsan yihiin ay kamid yihiin fanaaniin ka kala yimid ama ka soo hayaamay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland kuma hasanid daawade daawashada muuqaalkan fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag saaxiibadaada